Inta badan dhalinyaradu waxay lamaanahooda kula kulmaan bogagga internetka, gaar ahaan baraha xiriirka bulshada. Hase yeeshee badankoodu waxay la'yihiin xirfadii ay guul uga soo hoyi lahaayeen xiriirkooda noocaas ku unkama. Marka laga soo tago inaad baraha bulshada u gasho sidii aad jecel u samayn lahayd, balse marka hore ma leedahay xeeladii kaa caawin lahayd arrintaas. Marka loo eego xogta iyo xaqiiqda baaritaan ee laga sameeyay baraha shukaansiga, ayaa lagu ogaaday in 9 milyan oo qofood ay isticmaalaan shabakadaha shukaansiga ee loo yaqaano dating apps. Qaybo badan oo ka mid ah dadkan ayaan la xaqiijin karin taariikhdooda iyo macluumaadkooda saxda ah. Waddanka UK, baaritaan ay shirkadda YouGov ka samaysay shukaansiga baraha bulshada, waxaa lagu ogaaday in 10% dadka waddankaasi ay isticmaalaan baraha shukaansiga, halka in yar oo ka mid ah dadkan ay wehel jecel kala kulmeen barahaas. Halkan waxaan kugu soo gudbinayaa arrimo kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada, kaana caawin kara inaad hesho feejignaanta saxda ah. 1. Ha shukaansi tagin oo ka fogow shuruudahan. Haddii aadan qofka ka helin ama aadan jecleen, jooji. Mar dambena ha arkin qofkaas. Isku day walba waa halis, waxay keentaa daal, waxay kugu beertaa murugo naftaada ah. 2. Waxaad ka fakarayso aamin. Haddii aad hesho digniin mar kasta ah, u qaado si dhab ah. Waxaa jiro dareen ah inaad ka fikirto mar walba inuu yahay qaladkaaga. 3. Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in markii ay timaado fariimaha la isku diro la yareeyo. Inaad la hadasho 100 qof mar keliya waa sida ciyaaraha online-ka oo kale, waxay kaa luminayaan waqtigaaga. Ku bartilmaamayso waqtiga aad la sheekaysanayso asxaabta, adigoo muhiimadda ugu badan siinaya kuwa u muuqda inay yihiin kuwa ugu rajada dhow. 4. Xeeladda shukaansiga waa inaad khabiir ku tahay ugaarsiga goobaha ay ku badan yihiin xulashada qofka aad rabto. Noqo qof u shukaansi taga goobaha dadka qiimaha kuu leh ay joogaan. Shukaansiga waa ciyaarta tirooyinka oo kale. Soo raadi goobta halista ah ee ay taalo dheemanto. Fogee sahankaaga. Ha aaminin ganacsiga xayeysiiya inay iibiyaan dheemanta keligood. Waa been oo sahal laguma helo qofka aad ka dhex dooranayso shukaansiga baraha bulshada. 5. Saaxiibo raadi ugu horeen. Cilaaqaadyada ugu fiican waxay dhacaan markaad ku bilowdo saaxiibtinimo, kadibna ay isku beddelaan shukaansi. Dabcan waxaa dhacda inaad si fiican u barato qofkaasi intaadan shukaansan. 6. Noqo qof dabacsan. Waxaad u malayn kartaa inaad og tahay waxa ku soo jiidanaya, laakiin haddii aad xakamayso asxaabtaada ama aad liis badan iska tuurto, waxaa laga yaabaa inaad weyso qof muhiim kuu ah oo jaanis ku raadinayay inuu noqdo qofkaagii. Noqo qof degan oo macquul ah. Hal dhibic oo barashada internetka maaha inaadan lahayn xiriiro caadi ah. Sidaas darteed, waxba kama ogid qofka kale. Barashada dadka ku jira baraha bulshada waxaa halis ah inay kuu horseedaan inaad go'aan ku gaarto tirtirista asxaabta wanaagsan ee aad leedahay. Taasi maahan mid kuu wanaagsan adiga.